magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waana magaalo weyn oo qayb weyn ka qaaday halgankii dib u xoreynta dalka waana magaaladii laga dhawaaqay madaxbannaanida Soomaaliland 18 May sanadkii 1991 xilligaasi ay Soomaaliland madaxbannaanideeda mar labaad dib uga soo laabatay Soomaaliya oo 60kii ay midoobeen waxaana magaalada Burco ku yaala ansaar qadiimi ah kuwaas oo ka turjumaya halgankii adkaa ee dalka loo soo maray sidaasi oo ay tahay magaalada Burco waxa ku yaala gurigii xilligaasi laga dhawaaqay qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland 18 May sanadkii 1991 gurigana xukuumadihii kala dambeeyay dalka soo maray gaar ahaan xukuumadii kulmiye iyo sidoo kale xukuumadda hadda talada dalka ee kulmiye aanay gurigaasi aanay dayactirin waxa jira dhagax dhigyo badan oo gurigan in la dhagax dhigay balse dhamaantood kuwaasi ma noqon kuwo fula oo gurigii dib looma dayactirin isagoo hadda gurigani goob ganacsi u noqday dadka ka ganacsada mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan dadka ka gadhow gurigani dhagax dhigii ugu dambeeyay gurigani sida wadajirka loo dhagax dhigo ayaa waxa si rasmi ah u dhagax dhigay maamulka heer gobol iyo heer degmo barsaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxay qurbada halkaasi ay ka jeediyeen ay sheegeen in sida ugu dhaqsaha badan loo dhisay gurigan isla markaasina ay hadda gacanta ay ku hayaan lacagtii iyo qarashkii ku baxay gurigani baadib ay wada dhageysano hadaladii halkaasi ee maayirka iyo sidoo kale barsaabku ay kaga hadleen xilligii ugu dambeysay ee gurigan in la dhagax dhigo maanta hawshaasi in badan bay soo kaca kuftayo lagu dadaalay inay hirgasho laakiin may hirgelin maanta ayay hirgashay maanta shirkadiina joogta maanta lacagteedina loo hayaa maanta ayay bilaabmaysaa guriyahaasi waa guriyihii odayaashii 18 May ku dhawaaqay waa guriyaha hooyinay waa museum weey waxay noqonayaan guriyo la daawadaabay noqonay runtii waxa maanta sharaf weyn oo ah in aynu bilaabayno dhismihii goobtan taariikhiga ah ee maaragtay qiimaha weyn ugu fadhida dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah goobtii lagaga dhawaaqay gooni-isutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland sida gudoomiyuhu sheegay goobtani waxay noqon doontaa goob taariikhi ah qadiimka hay'ada ka soo qayb qaadatay haday gaadiidka dadku lahaayeen u malayn maayo gaadiidkii tignaday wax laga helayo qoryihii kulay wax la helay nuur madoobe iyo wax laga soo helayaa laga soo helayaa in halkan la dhigo oo ay noqoto goob miisba shacabka magaalada Burco ayaa isweydiinaya meeday haddaba lacagtii ay maayirka iyo barsaabku ay ballan qaadeen isla markaasina ay sheegeen inay hayaan sida ugu dhaqso badan loo dhisay gurigani gurigan oo ah gurigii Soomaaliland laga dhawaaqay qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland siyaabo kala duwan uga hadleen sababaha ilaa hadda loo dhisi laayahay iyadoo mas'uuliyiinta dawladda ka socda ee gobolka safarka shaqo ku imaada ay kormeer inta badan ay ku tagaan gurigan ayaa si haddana gurigani aan wali la dayactirin iyadoo dadka xaafadaha ka u dhow gurigana ay sheegeen inay baahi weyn u qabaan sidii loo dhisi lahaa gurigan isagoo gurigana imaka goob ganacsi u noqday dadka ka ganacsada mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.